wararka ka soo baxaya gudaha magaalada Hargeysa ayaa daboolka ka qaadaya in baasaboorka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya looga furay xarun qunsuliyeed oo ah gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. sidii aynu ku soo sheegnay warbixinteenii hore, xafiiskan dhagaraysan waxa ugu sarreeya 3 sarkaal oo ah kuwaasi oo kala sita darajada madaxa xarunta, ku-xigeenkiisa iyo agaasimaha xarunta. haddaba Khadar Xuseen Axmed waa sarkaalka labaad ee ku magacaaban ku-xigeenka xafiiska baasaboorada ee dawladda Muqdisho ka furatay gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Khadar ayaa ah ninka soo saxeexay xafiiskan, kaasi oo uu dhawaan Muqdisho ku tegay safar uu ku soo dhameynayay furitaanka xafiiskan ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliland. Khadar Xuseen dhalasho ahaan waa reer Hargeysa, waxaana uu ka soo jeedaa koonfurta caasimadda magaalada Hargeysa. Khadar Xuseen waxa uu joogaa inta badan oo dadka kula soo xidhiidhan xafiiska lagu magacaabo Sky Travel oo ku yaala gasoo horjeedka Fooqa Dalwanaaje, waxaana uu dhinaca ku hayaa xafiiska Takaaful ee bartamaha magaalada Hargeysa. xafiiskan ayaa ku magacaaban in uu dadka u fududeeyo helidda tigidhada diyaaradaha, hase yeeshee waxaa ku qarsoon in lagu hago dadka baasaboorada dawladda federaalka ee Soomaaliya raba, maadaama uu fadhi u yahay ku-xigeenka xafiiska baasaboorada Soomaaliya ee magaalada Hargeysa.